kulanti waxaan daawadal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka ee warbaahinta ogaal qodobada wararkan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo wafdi hogaaminaya oo gaaray magaalada Garowe galabnimada maanta Ra'iisul Wasaare waxa uu beesha caalamka siiyay mowqifkooda ku aadan la xiriirida doorashada ee dalka israasaaseen ka dhacday maanta gudaha magaalada Muqdisho iyo waliba khasaare xooggan oo ka dhashay xildhibaanada dawladda oo muddo hal sano ah ku darsaday aqoonsiga kaararkooda iyo waliba ciyaar xiisad leh oo galabta ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho taasi oo dhaxaysay kooxaha Jubbaland kooxaha Galmudug iyo waliba Puntland qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiiso ayaan ku soo qaadanayna warka caawa warbaahinta ogaal daawadayaal madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray Garowe halkaas waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana wafdiga Xasan Sheekh Maxamuud kamid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Bukhari madaxweynaha hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan musharax madaxweyne Cabdinaasir Cabdulle iyo waliba xildhibaan wafuudan oo ayaana ka qayb galay shirka madasha aragti wadaagga ee sanadlaha ah oo macadka Heritage ku qabanaya gudaha Garowe shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar kamid ah madaxda dawlad goboleedyada gudoonka labada aqal iyo mas'uuliyiin ka socota xukuumadda shirkan ayaana furmi doona maalinta Talaadada oo ku beegan 29 December waxaana uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah ajendaha shirka ayaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka sida Soomaaliya uga gudbi karto sanadka 2025 ku meel gaarnimada daba dheeraatay dastuur dhameystiran doorasho qof iyo cod nidaam federaal oo shaqeynaya iyo waliba aragtiyo kale waxaana shirka sidoo kale uu culays xooggan uu ku noqonayaa Villa Soomaaliya oo ilaa hadda bedeli la sida xogtaan ku helayno guddiga doorashooyinka madaxa banaan ay hore u magacaawday Ra'iisul dalka mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu maanta shir gaar ah la qaatay wakiilada iyo safiirada dalalka caalamka ku jooga Soomaaliya kaasoo looga hadlayay dardargelinta hanaanka doorashooyinka ee dalka Ra'iisul Roble ayaana kulankaasi ka sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'aansatay qabashada doorasho si nabadoon dalka uga dhacdo isla markaasna uu diyaar u yahay inuu la fariisto cid kasta oo cabasho ka qabta habka ay u dhacayso doorashadu waxa uuna sheegay in musharaxiinta cabashada ka qaba doorashada uu diyaar u yahay inuu la fariisto wax ka qabto tabashadooda xafiiskan uu furaya mar walba uu yiri hadalkiisa ayaan imaanaya iyadoo guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka ee ku xiran Villa ay soo saareen jadwal doorasho balse ilaa hadda aysan jirin cid dhaqan gelisay qodobada dhamaanba lagu xusay arintaasi gudaha magaalada Muqdisho waxaa ka soo baxay faahfaahin dheeraad ah oo ah israasaaseen xooggan oo magaalada Muqdisho gaar ahaan ex control of goy ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan isla dawladda israasaaseyntan ayaa waxay dhex martay ciidamada booliska iyo kuwa militariga ee dawladda kadib markii ciidamo militari ah watay mootooyin ay rasaas kor u rideen midaas oo keentay in labada ciidan ay iska hor imaado dhex mar ciidamada booliska oo ku sugnaa ex control ayaa ka shakiyay rasaasta ay furan ciidamada militariga iyadoo ay israasaaseynta labada dhinac ay socotay muddo sida warbaahinta ay u sheegeen dad goobjoogayaal xilliga israa'iilimaadka dhacaya ayaa waxaa gabi ahaanba mashquul ah isgoyskaasi taasi oo hakad geliyay israasaaseynta labada dhinac wararka ayaa intaasi ku daraya in israasaaseyntaasi ay ku dhaawacmeen ilaa inta la xaqiijiyay 6 qof oo 4 kamid yihiin shacab halka labada kalena ay ahaayeen ciidanka militariga ee uu horeyntii rasaasta furay waxaa gabi ahaanba hadda degan xaaladda guud isgoyska kadib markii ay goobta iskaga baxsadeen ciidamadii militariga ah ee markii hore furay rasaasta isla markaasna sababay in iskorkimaadka labada dhinac uu dhaco magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeysayba wajahaysay iskorkimaadka noocan oo kale oo dhexmar ciidamo ka wada tirsan dawladda kuwaas oo inta badan ay waxyeelo ka soo gaarto shacabka dhanka kalena caabu waxaa deganaan laga dareemayaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ka jirtay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la sheegay inay u dhaxayso jabahada ka ciidamo gooni-goosada kuwaas oo la sheegay inay ka goosteen ciidamada xoogga militariga isla markaasna sidoo kale la sheegayo in isla militariga dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay ku raad joogaan dhanka sidaan xogta ku leena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijinayay in muddo hal sano ah loogu kordhiyay kaararkooda aqoonsiga oo sanadkan dhamaadkiisa ka dhacaya baarlamaanka xildhibaanadan aan la hadalna ayaa noo xaqiijiyay in taariikhda ID kaaradoodu ay ku beegan tahay 27 December ee sanadkan xilligaas oo markii loo dhaariyay sanadkii 2016 dad badan ayaana isweydiinaya mar haddii kaararka aqoonsiga jiritaankooda lagu daray hal sano dheeraad ah inta ay sii joogi doonaan xildhibaanadan inkastoo waqtiga baarlamaanka dhamaaday haddana dhowaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Muuse Shacdaramaan waxa uu sheegay inay sii jiri doonaan ilaa inta laga helayo baarlamaan iyaga bedela
iyadoo uu dhammaaday waqtiga baarlamaanka ayaa sidoo kale madaxweynaha soomaaliya mudane cabdulaahi farmaajo isna waxa uu u harsan 47 maalin welina ma jirto doorasho laisku raacsan yahay oo dalka loo jiheeyey. marka madaxweynaha xilka uu ka dhammaado ayaa laga cabsi qabaa in dalku xaalad halisa galo, iyadoo uu mucaaradkaysan wixii markaasi ka dambeeya farmaajo aqoonsan doonin madaxweyne islamarkaasna kula loolami doonaan wax walba oo uu madaxweynaha ku dhawaaqo. magaalada muqdisho galabtan waxaa ka dhacday ciyaar xiisad leh oo u dhexaysay labada kooxood ee Puntland iyo Galmudug. ciyaartan oo ahayd mid xamaasad leh markaasna ka dhacday garoonka Injineer Yariso ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne fara badan. ciyaartan oo ka mid ah ciyaaraha maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-1 oo ay guusha ku raacday maamulka ama kooxda ka socotay maamulka Galmudug. ciyaartan oo inta badan aad looga daawanayay shaashadaha ayaa waxaa aad u xamaasad badneed, iyadoo taageerayaasha labada dhinac ay ahaayeen kuwo xifaaltan adagu ka dhexeeya, maadaama labada dhinac ay yihiin laba maamul oo daris ah. markaasna ciyaartan lagu tilmaamay inay ahayd ciyaar derbi ah, waxayna fiinaalaha u soo baxay maamulka ama kooxda ka socotay maamulka Galmudug, iyadoo wajihi doonto midkood labada koox ay bari wada ciyaari doonto ee Koonfur Galbeed iyo Banaadir, oo iyagana labadooda mid uun soo bixi doona finaalka koobka tartanka ee maamul goboleed.